qaar ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka gobolka Togdheer oo shir jirayd maanta ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa markii ugu horeysay ka hadlay shil gaari oo sababay geeri kaas oo dhawaan ka dhacay duleedka caasimada Soomaaliland ee Hargeysa. kiiska gaarigani sababay geerida ayaa dhawaan culimada waaweyn ee Soomaaliland ay ka soo saareen xukun isla markaasna ay gudbiyeen maxkamadda sare dalka. balse odayaasha iyo waxgaradkan ayaa maxkamadda sare dalka ku eedeeyay inay waxba ka qaban kar laadahay kiiskaasi isla markaasna ay fulin laadahay xukunkii ka soo baxay culimada waaweyn ee dalka. waa kuwa qaar ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka gobolka Togdheer oo ka hadlaya kiiskaasi. halkan hadii ilaahay ogolaado arin kiis shil baabuur oo ka dhacay magaalada Hargeysa agteeda agagaarkeeda haleeyo agteeda 23 bishii afraad 2012 shilkaasu markii uu dhacay darawalkii waday gaariga oo sifo khaldan ku waday oo la soo cadeeyay inuu 140 ku soconayo maxkamaddu sida ay cadeysay. ninkaas waxa uu khaladkii isaga yeeshay si qeyr xada oo ka baxsan socodka sida baabuurta xawliga lagu wado ayuu ku waday gaarigu faarbuha. maxkamaddu waxay ku xukuntay ninka mulkiili gaariga iyo darawalkii khaladka galay ayay u kala qaybisay. taas ayaanu ka soo horjeednaa beelweynteeda halka fadhida waxaana uga soo jeednaa shariicada islaamka waxa aanay nasaarin ma qaadanayno. maxkamadaha ayaa cabasho ka cabanayna xukunkooda ay sida xukumeen waliba maxkamadda sare waxaan ka cabanaynaa oo tiri diintu way duugowday xilligan casriga lama jaan qaadi karto oo waqtigii ay daabadaha ka warramaysay shariicadu ma jirin baabuurta casriga ahi. markaas waxay taasuna u dhigan tahay markii aan anu raygeeyo tukrigii yidhi waqtigii diinta ka baxay khilaafada islaamku burburiyay af tukri lagu xidha salaada ka hadlayna oo erga kaga nahay oo aanu xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu erga uga nahay oo aanu golaha baarlamaanka erga uga nahay oo golaha guurtida uga erga nahay oo culimada reer Soomaaliland oo dhan aanu erga uga nahay sharci darrona lagu xukumay oo aan u aragno inay xaq darro tahay oo aan waafaqsanayn shariicada islaamka. beeshani ma qaadanayso waxaan sharciga islaamka waafaqsanayn oo sharciga ilaahay ogolayn ma qaadanayno. shirkiga oranaya diiba duugowday ta ilaahay wax laga magan galay waata balorta qof kasta oo reer Soomaaliland oo hadalka maqla ha ka dilgisho waxay u dhigantaa salaadii qaar hana dhigo qaarna la kulli markana la diido waa duugowday وهذا الإلهي لك أوسكار ولا مجد أنت هو حراعة وهذا الكلام كسور لنا حقيقة دي سنة كتابرنا بيرهان يقفهان يشخصيان يعامهان يسومان لا دران يتبليرهان وحي حلا إسلامات كفر ما باكاي وكفر ما وحي كفر ما وكفر وحا عبشري وكسر يسنتهاي وحا قبل كيجان نقلنا أوهين دستور كدل كنا كسر يسنين قدر كيس الشناد aan ku salaysnayn xeerka sooyaalka ummadda ku dhacanto duminku diinta islaamka. anigu waxaan ahay ninka lagu xukumay way duugowday oo waqtigan aayadaha quraanka ee aad ku doonaysaa ma la jaan qaadaya. waxaan hayaa xukunkiisii baadilka ahaa ee yiri waqtiga laba jaan qaad hayaan. waxaan hayaa qoraalkii aan gudbiyay aayadka quraanka ahaa ee maxkamaddu shaambadaysay. sidaa darteed waxaan ana ururiyo codsanaya madaxweynaha ka codsanaya golayaasha iyo culimada diinka iyo golaha fulinta wasiiradaba in sida ugu dhaqsaha badan arrinta wax looga qabto la hawlgeliyo guddigii qaran ama aan idhaahdo commissionkii islaamiga ahaa ee ku qornaa culimada diinka ahaa ku qoraa qodobka 115 116 iyo 117. aan ka hadlaynaa marka hore salaam soo gudbinayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan culimada diinka كانت قوية شريعة الإسلام كلياشة كبرلمان كتبوتنا هذا الكبور الماضي وعن قدر إياه قضب كقرآن قدر إياه وحويا شرعي كان لقول حكومي قبل الله الضلكة جمهورية الصومال الليل ما أي كشقيان أو أي كنغن كشي أو لقى نقمي أو لقى قاطي أو هرجيسين